هويدين سؤالهني قفك أجعشها وحاجلو سؤالو حريدة جعل السميو لدي كوئة وأبوري كراشاكي أماكل سوني درو هذا بسيء سنتاسي كودعين لما يسرو مقال كنسي أدن أويدين لما انكاقا سؤالهن سؤاشا كواد إما جعشهاي هويدين قفك أجعشهاي سؤاشا وحي أبوري ساكل سوني درو وحي نكيني ساين قفكني أد كل هاي ولي إما جعشهاي xitaa markaan dhinaca kale ka fiirino adiga ayaa hoos isku dhigayo haddaba miyaadan ahayn qof weligiis la jeclaan karaa mise maalmaha hore unbaa lagu jeclaan karaa ka digtoonow su-aashan inaad weydiiso qofka xiriirka kaala dhexeeyo waan ogahay waxaad isleedahay waxaan jeclahay in afkiisa aan ka maqlo laakiin waxaa jirta si kale oo aad qofkani uga kaysan karto inuu ku dhowaan ku jeclahay su-aasha labaad yaad la hadlaysay mayaha weydiinin jooji masiirka haddii isaga amyada uusan kuu sheegin qofka ula hadlaayo adiga maxaad ka weydiinaysaa waxaa laga yaabaa in qofkani u arko inaysan muhiim ahayn inuu kuu sheego qofka ula hadlaayay haddii adiga aad weydiisana waxa ay ku tusaysaa in qofkani aad rabto inaad xukunto bini'aadamkana xukunka iyo amarka ma jeclo su-aasha saddexaad imise sano ayaa jirta qasab ma ahan inaad ogaato sanadka qofkani uu jiro marba haddii aad ku qanacday jacayl inaad u haysid waxaa laga yaabaa in isaga uu kaa weyn yahay ma adiga aad ka weyn tahay kadib marka la ogaado sanadka waxaa dhici karta inay bilaabmato isla weyni kadibna naftaada aad kula hadasho anigoo yar sidee qof weyn u bari karaa ama u raaligelin karaa muhiim ma ahan sanadka la jiro ee waxaa muhiim ah jacaylka idin dhex yaala su-aasha afaraad online ayaad ahayd maxaad ii soo jawaabi weyday fiiri waxaa laga yaabaa in qofkani uu mashquulsan yahay ama ula hadlayo ciddani ay kala dhaxayso adiga ha degdegin hana weydiinin su-aashani oo kale su-aasha ugu dambeysa aan rabo inaadan weydiinin qofka xiriirka kaala dhexeeyo waxa weeye su-aasha shanaad lacag ideemi ama isii wax weydiinta waa meesha ay ka bilaabmato in lagu naco bini'aadamka ma jecla cidda wax weydiisata siiba marka la joogo xagga lacagta sharaf dhac ayay kuu tahay adiga intaadan qofkani lacagta weydiin waxaa laga yaabaa in agtiisa aad qiimo sare aad ka joogtay balse marka lacagta aad weydiisay qiimaha qofka aad agtiisa aad ka joogtay uu isdhimay waxaa laga yaabaa in halkan uu ka bilaabmo dib u gurasho iyo isniciid iska ilaali inaad wax weydiiso qofka xiriirka kaala dhexeeyo inta ayaan jeclaysay inaan kula wadaago muuqaalkan waad mahadsan tahay